Asalaamu calaykum daawadayaal meel kasta aad ka joogtaan dunida daafaheeda waa Boolimoog Channel oo aad uga barataan inuu halkan idinka soo gudbiyo taariikhaha wararka iyo casharo wax ku ool ah. Waxaan haddaba maanta idiin soo gudbinaynaa hadduu Alle idmo waxaa la yidhaahdo YouTube Analytics oo muhiim ah. Haddaba waxaan ku bilaabay marka aad soo gashid YouTube-ka waxaad tegaysaa profile-kaaga calaamadda yarta ama halkaa saaran waa qof walba profile-kiisa. Waxaad ku dhufanaysaa click. Markuu qaanadaasi kuu soo kacdo ayaa waxaad ka dooranaysaa halkaa ay ku qoran tahay YouTube Studio. Wuu soo kacayaa YouTube Studio. Marka uu soo kaco wuxuu ku keenayaa qaanadan wajahadeedu sidaas tahay, halkaasuu ku keenayaa. Haddaba markuu halkaa ku keeno waxa weeyaan Journal Dashboard waa wajahadii journal-kaaga. Marka waxaan u soconnay waxa uu qabto iyo waxa uu taro YouTube Analytics iyo faa'iidooyinka uu leeyahay. Sida aad aragtaan waa ka halkaa ku qoran Analytics. Haddaan ku dhufto Analytics wuxuu geenayaa qaanadan. Okay, qaanadan markuu keeno waxaa halkaa ku qoran View are up. Viewska kor ayay u socdaan iyo journal-kaaga waxa uu helay 3,198 aragtiyood 28 maalmood ugu dambeeyay. Waxaan uga dan leenahay muhiimaddu waxa weeyaan YouTube Analytics faa'iidada uu leeyahay iyo waxa uu anfaco. Sidaan idin sheegayba journal-kaagu waxa uu helay ayuu yiri 3,198 maalmood ugu dambeeyay waa bil. Halkan waa real time upcoming waqtiga saxda ay imanaya. Subscribe-ka halkaas ayuu ku soo qorayaa, views-kana halkaas ku soo qorayaa. Haddaad aragtaan views sidaas ah waa views liidimaha kor u taagtaagan. Waxa uu qeexaysaa liidin walba aragtidii aragtay iyo waqtigii ay aragtay. Soomaad garan sidaas haddaad ula raacid gacanta mid waliba maalinta ayay ku keenaysaa inta aragtiyood uu journal-kaasi arkay ama dad ee daawaday. Wuxuu kaloo YouTube Analytics leeyahay wuxuu halkaa idiin soo saarayaa fiidiyoyadaada kuwa ugu horeeya ee aragtiyada badan leh, sida ay u kala sarreeyaan ayuu usoo kala hormarinayaa. Waad aragtaan wuxuu kaloo halkaa idiin soo dhigayaa viewska iyo average viewska, durationka iyo watch time hour-ka, inta la fiiriyay iyo isku celceliska aragtida inta ay socotay oo daqiiqadood. Fiidiyoyada kuugu jira fiidiyo walba inta jeer la eegay isku celcelis ayuu kuu sheegayaa iyo saacadaha. Waxaa kaloo uu halkan kuu sheegayaa meeshaas aad aragtaan waxaa ku qoran awal waxaanu joognay YouTube Analytics waxaanu ka joognay overview oo ah eegitaanka guud. Marka reach baa haddana ku xijinaynaa oo ah inta uu gaaray, oo micnaheeda ah inta uu gaaray sare u kaca impressionka iyo viewska. Waad aragtaan halkaas ayuu idinku qeexayaa waxaa la dhaho graphic-kaas ayuu idin sheegayaa. Haddeer journal-kan khamiistii iyo jimcihii ayuu wuxuu ahaa daawashada ugu badan khamiistii iyo jimcihii oo kala ahaa 2 Abriil iyo 3 Abriil 2020. waa graphics-kaas ayuu idin tusaya idin muujinaya. Haddii aad rabtid hoos markaad uga sii degtid wuxuu ku tusayaa traffic source tags, meelaha uu ka kala yimaadeen, ilaha ay ka yimaadeen daawashooyinkaaga. YouTube Searching waxaa ka yimi 80.5%. micnihii journal-kan daawashadiisa YouTube-ka marka laga dhex raadinay dad raadinay YouTube-ka wax ka baaraya ayaa helay. Other YouTube views-kana waxa way 10.3. waa direct
or aanu sida tooska kuwa u soo abaaray ama kuwa aan la garanayn playlistiga inta ka daawatay janaal pageka inta ka daawatay iyo others iyo wax sidaas ayuu u kala qeexayaa mid walba waad aragtaa haddaan ka qaada liidinta halkaas traffic sourcigaas liidintaasaa u wareegta waxay qeexaysaa qaababka u kala horeeya sida loo kala arkay iyo meelaha fiidiyoyadaada laga helay ma dad youtube-ka qof baaray baa helay ma qaabab kale youtube-ka dad iskaga jiraa helay ma toos qof u raadiyay channelkaaga helay playlistigaaga kuwa ku jiro la daawaday miyaa waa qaababkaas waxyaabaha youtube analyticska ugu fiican lagu ogaado ayaa waxay tahay channelkaaga sare oo kaciisa ilaha ku daawada meeshay ka yimaadeen sida loo daawaday playlistiga laga soo fahmin halkana waa impressionka aragtida sida ay u hogaaminayso aragtidaada sida u hogaaminayso waqtiga time watchka saacad waa 251 saacadood marka hadba ma youtube 48 saacadood wuxuu idin keenayaa arrin cusub oo macnihiisa uu isbedelaya saacadii haddaad aragtid sideedaba channel sidaas ah oo falaarta cagaarka 758% waa kor buu u socdaa weeyaan aragtidaas aragtida iyada daawashada qudheeda lagu soo kor buu u socotaa fiirinta viewska kor buu u socdaa unique viewskan ayaa hooseeya oo ahaa inta loo baahnaa unique views oo ah inta loo baahnaa soomaalina garan okay waxaan soo qaadanay overview iyo reach waxa kale engagement ayaan ku xijinaynaa oo ah aragtida iyada qudheedu ma xuma intaas ayaa aragtay isku celcelinta waxa weeye 9.56 isku celcelinta average all time ka weeyaan kana waa watch time hour saacadaha 530 labadu ma xuma mar hadduu falaarta cagaaran kor u qaado ma xuma okay revenue haddaanu eegno revenue-ga waxaad ogaan kartaa markuu janaalkaaga monetization helo oo ah la aqbalo oo YouTube policy iyo partner iyo YouTube policy program aqbalaan iyo Google AdSense oo channelkaaga kugu xirma ayaa waxaa lagu ogol yahay in markaas aad aragtid hadda revenue oo ah dakhliga audience-ga aanu eegaynaa oo sida unique loo baahnaa maahan iyo average loo baahnaa waa ka hooseeya labadaba waad aragtaa mar haddii alaab laakiin subscribe-ka ayaa kor u socda ayuu leeyahay subscribe-ka kor u socda oo ku darsamay intaa haddaba qaabkan idin sheegay oo ah YouTube analytics waa waxa ugu muhiimsan oo qofku arko hadeer fiidiyoyadan aan channelkan geliyay waxa kaloo marka aan ka soo tago watch time for subscribers daawashada ay yani dadka subscribe-ka channelku ay daawadeen channelkayga waxa not subscribe-ka badan inta aan subscribe saarin waxa daawatay 91.9% dadka daawaday channelkan subscribe ma siinin waad fahanteen top countries-ka laga daawadayna waa kan Mareykanka waxaa ka daawatay 12.8% South Africa waxaa ka daawatay 11.1% Hindiya waxaa ka daawatay 5.4% Philippines waxaa ka daawatay 4.8% Jamaica waxaa ka daawatay 1.1% okay haddii intaan waa top countries waa wadamada ugu horeeya 1 2 3 4 5 ugu sareeyay okay haddaan saa u socdo marka waxaa kaloo halkan ku jirta iyadana muhiim aad ku ogaanaysaan age and gender da'da micnihii iyo dadku waxay kala yihiin da'da iyo rag iyo dumar waxa daawaday okay female oo ah dumar waxa daawaday 2.0% male oo ah rag waxa daawaday 97.9% baa daawad oo rag ah waa age-ka iyo age-ka marka waa kana 18 jir ilaa 24 jir 9.4% ayay daawadeen 25 jir ilaa 34 jirna waxaa daawatay 78.1% 35 ilaa 44 waxaa daawatay 12.5% waxaa marka ugu badan age-ka waxaa ugu batay da'da u dhaxaysa 25 ilaa
sidaan ugu sheegnay female-ka oo ah iyaguna dumarka 2.1 weeyaan aad buu u hooseeyaa waxaa 97 iska 98 boqolkii wax daawado waa rag. waxaan kaloo idin sheegnay raggaasi inay u kala dhexeeyaan da'da ugu badan ee daawatay inay yihiin 18 sano ilaa 44 jir intaa u dhexeysa daawato oo ugu badnaayeen 25 jir ilaa 34 jir. waxaa kaloo oo halkan idinka soo aragteen isagana wadamada oo halkan aad ku ogaanaysa inta dal oo daawatay watch-time-ka wax walba marka haddaynu mid waliba markaan halkaa ku dhufano see more haddaad tiraahdo wax intaa ka badan buu kusii tusaya aanu aragno iyadana wuxuu kuu soo dhigay khaanadii in ka badan oo ka waasacsan oo kuu sheegaysa waxyaaba kuwa oo ah fiidiyoyadii oo sax ah magacyadoodii waad aragtaan watch-time-ka viewska unique viewka wixii la subscribe waxa dhan oo loo baahan yahay oo ka janaalada kuwa ugu horeeya filimka ugu horeeya oo aadka loo daawaday oo saacadaha ugu badan halkan haysto waa kaa koowaad oo filimka kaasaa ku xiga kaasaa ku xiga kanaa ku xiga kanaa ku xiga kasay u kala horeeyaan weeyaan oo u kala daawasho badan yihiin saacadahooda. waa qaanadahan oo dhanna traffic source-ga wakaa geography wakaa view age-ka wakaa view genderka daatada revenue sources subscribe status subscribe sources somaad fahmi. marka daawada haddaad tahay youtuber waxaa muhiim ah ama khasab ah inaad haysatid oo aad isticmaashid waxaan la leeyahay YouTube Analytics. waa inaad mar walba fiirisaa YouTube Analytics ma ahan wax ka yimid meel kale waa keliya qaanadaada aad ku jirtid oo ah profile-kaaga markaa gashid ayaa halkaa ka dooranaysaa YouTube Analytics kadibna wuxuu kuu sharaxayaa janaalkaaga inuu kor u socdo inuu hoos u socdo somaad fahmi subscribe-kaaga inuu kor u kaco inuu hoos u socdo daawashada aad hesho waqtiga inuu waqti views badan inaad heshay subscribe-kaaga inuu kor u socdo daawashadaada kor inuu u socoto wuxuu dhalka up dating live real time-ka soconaya halka calaamada hadday dhigtaa tiraahdo waxaa ku jira janaalkaaga daawasha ku socoto. waad aragtaan halkaan in inta viewska average view duration-ka watch time hours-ka kulli inay kor u socdaan dhigdinta haddii ay guduud noqdaan oo hoos wada guduud calaamada noqdaan janaalkaaga wuxuu hoos u socdaa waxaa lagaaga baahan inaad dadaal dheeraada samaysid. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waa Boolimoog Channel oo idin rajeynaya casharkan inaad ka heli doontaan si aad u heshaan casharo idin xiiso geliyo aadna aad ugu baahan tihiin fadlan channelka subscribe saar like iyo comment inaad ka ilaawin isu soo noqod wanaagsan casharkan casharkiisa xiga. wassalaamu calaykum.